بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أو وناكسن داوديال وبرنامج كمين لما قرن مركز كجبرتين وعيجلين تبرشة الصوماليات ما أنت برنامج كنوح وكسب سنة هاي توبي كأننا أنك هذا دونان أوي هاي تيرفاس كجولاي أما صدق يكوجا بيشا جولاي oo ah maalintii aan aasnay qabyaalada aan u dabaaldegi doono sanad walba waa aasida qabyaalada iyo quursiga walaalaha aasida qabyaalada iyo quursiga walaalaha maanta barnaamijkeena waxaa noogu marti aad iyo aad u culus u sharaf badan bulshada Soomaaliyeedna muuqooda ay aad uga heli doonaan wadan garanayaan inta badan barnaamijkan walaalayaal waxaan ugu talagalnay mar walbana ugu talagaleynaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka uga daadsan yihiin uga nool yihiin in ay kaga faa'iideystaan maalintaana inay noqoto maalin ummadda Soomaaliyeed xasuus gooni ah ku reebta maadaama 1 July ay tahay maalinta xornimada in aan qabyaaladana iyo quursigaba aan aasno 31 July hadii Ilaahay yiraaho walaalayaal maanta barnaamijkan waxa igala soo qayb galay abwaano sharaf badan waxa igala soo qayb galay hobaladii waa bari walaashay waxa dhinacayga fadhida Cadar Axmed Kaahin waxa kaloo dhinacayga fadhiya walaalkeen Axmed إسماعيل يوسف ولكن أحمد إسماعيل يوسف أو أقوياء سوماليات نقلنا قيب قادنا يا ما ننت عسيد قبيلة يقورسك ولا لها وحكلا أودينا عيجا مدق ولسي فرديا هل يد أمد الصوماليات وأضوض جرنا إنسان هبو نورا وحكوسي حجة أوان برشدة عنكو وذا يقانان أو أصغنا غير مينيسوتا أدنى غير مينيسوتا أي أجعليهين أو قبيلة iyo baraarujintiisa ay aad uga helaan waa abwaan Luqmaan Ali Waraabe waxa ku xiga Maxamed Cabdi Ali Maxamed Soomaali ayaan u naqaanaa waxa ku sii xiga abwaankeena weyn ee ummadda Soomaaliyeed aadka ay u garanayaan abwaan Cusmaan Ducaale dhamaantii waxaan leeyahay soo dhawaada waxaana ii tahay sharaf aad iyo aad maanta aad baan ugu faraxsanahay inaad kulligiin ila joogtaan nagalana qayb qaadanaysaan dabargoynta qabyaalada ama aasida qabyaalada iyo cunsurinimada insha Allah bilmillahi kariim waxaan ku bilaabi doonaa aayadaha quraanka sidii caadada inoo ahayd waxaynu nahay ummad islaam ah waxa inoo bilaabi doona abwaankeena weyn Luqmaan abwaan Luqmaan ku soo dhawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله صدق الله العظيم وحين وجهك دونا إن شاء الله بالله الكريم walaasheen ama dadku wada garanayaan hobaladii waa bari qof umada Soomaaliyeed caan ku ah waxa weeyaan Cadar Axmed Kaahin ku soo dhawo farxad bay ii tahay inaad gala qayb qaadato barnaamijka midnimo qaran ee wacyigelinta umada Soomaaliyeed waad mahadsantahay Jamiilo aad iyo aad baad Jamiilo u mahadsantahay waan ku faraxsanahay casuumada aad nagu soo casuuntay barnaamijkan aad iyo aad ay ugu baahan tahay umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan ka soo qaadanayaa riwaayadda masiibada adduunyada iyadoo macallin oo suugaan aad u macaan oo jeclaay lahayd badda waxa ku nooliyo bari waxa ku hoos jira hibashada bogaygiyo badankayga jiifta labadaba ka fara badan waa 100 quruumood 10 waliba waa beel iyo baha iskaashaday aan bilaaba kowdhaha bulsha waa in baahiyo basanbaas ku raagto bawdada cadkaygiyo hilbahayga bidixday ka dhigteen baraaro wax beerkooda baahlucumo bar xulaad laguma oga in boota iyo orod ben iyo wax jirin bay ku bartaan xiskaygo maskaxdayda baahsani baaweyn adduunkay laba baal isqabadkood baabacad ru saartaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysataa aad bay u fara badan tahay hadii qabyaalada la eego waliba qabyaalad baa jirta iyagoo qabiilaystayaal oo isqabyaaladeeya ayaa haddana qolooyin gaar ah sii qabyaaladeeyaan marka dhibaatadeenu aad iyo aad bay u fara badan tahay waxa cajiib ah iyada oo qabyaaladu ay guud ahaan jirto ba haddana dad gaar ay sii xumeeyaan waraaba wuxuu yiri nayl yar buu arkay masuunaya nayle maxay caayisnaya kal hore markaasay tiri kal hore ha dayrtii dhaweyd baad cayday markaasay tiri dayrtii dhaweyd maana jirin anigu tanaan dhashay suunaanaga tagada hooyadaaba ay hayday
وعناي marka dadkan hadda la sii cunsuradaynaya wax alla waxay geysteen ma garanayno waxay ku leeyihiin wax sheeka aan jirinte laba walaalaaba sidan yeelay oo sidan aliya sheeka jirta ma aha kitaab aynu ka akhrinay ma jirto gabay aynu ku maqalay ma jirto sheekadu meel ay ka bilaabatay dhulka meel ay kaga bilaabatay garan mayno wuxuu qof kasta garaadsaday iyadoo dad gaar ah la cunsuradaynayo oo la qabyaaladaynayo iyagu way si qabyaaladan kuwan kale ay wax qabyaaladaynayaan iyaga laftirkoodu waxay si yiraahdaan laangaabkii xuma kii kale ee sidan aha meel nool bambalhiinba marka la eega qabyaalada marka dadkan wax alla waxay galabsadeen lama garanayo way ii egtahay waan isu wada egnahay haday doonto way iga qurux badan tahay way iga fiican tahay way iga fariisan tahay haday doonto way iga mutacalisan tahay ma garanayno qof waliba markaad weydiiso wuxuu ku leeyahay waxaan maxay u dhaceen wallahi ma garanayo ee mooyee laakiin xaq darro weeyaan qof kasta wuxuu leeyahay xaq ma aha waxaan marka xaq ma aha waxaan maaha inaynu sii wadno waa inaynu solution keena waa inaynu keenaa dad bu ilaahay naga dhigay waa inaynu waxaan suulino waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caruurta yar yar ee dambe inayna yeeli doonin matalan ba aniga inankayga bilaal ma yeelayo gabadha Soomaaliyeed ee halka joogtay adeerkii dhalay ee walaashiisa ee Soomaaliyeed ee u eg ee si walba aan loo kala garanaynin sabab uu ku xumeeyo ama sabab uu yiraahdo markii ma garanay wiilkaygu anu idilaya haduu cunsuriyada igu ogaado igu jirta ama ku jirta dadkeena Soomaaliyeed annagu ayuuba shaqo naga qabanayaan marka waxaan wax sii jiri doona ma aha generation dambe way ka tashan doonaan waata inta sheekada tan waxay ka timi shaqooyinkeenii ahaa dal durugsiga ama la isugu yimaanayay maxay ahayd ceelka la isku qabsanayay waa reer yar oo masaakiin oo laga adkaaday oo toobana oo sama wadaadar xataa laga yaabo inuu walaalkii markii uu walaalkii somehow maalin maalmaha kamida shaqooyinka kale oo dhan inaga samaysan wax jira maalin maalmaha kamida in aad un ka gacan roonaato wax isku dhaafteen 100 sanadood ka hor waxaan uga jeedaa 1 sanadood ka hor dabadeetana tii looga dhigay caado lagu celiyo oo lagu celceliyo oo lagu calaamadayo okay caadada oo kale waxa kamida cadooyinka xoolaha for example kuwa ugu cadowsan xoolaha waxa ay Soomaalidu tiraahdaa aynu inagu naqaanaa isla aynu marinay ugu qurux badnaa xoolaha ila xayawaanka wax laaya libaaxu marka koox buu isu raacaa raxan ahaan bay isu raacaan Englishta wax lagu yiraahdo pride koox bay isku raacaan mid baa aarka hogaaminaya inta uu isagu ku qooqayo cidda tan wato waqti buu leeyahay siman waqti buu xadidan inta uu isagu kooxdiisa wato caalamka inta u dhow oo dhan wixii soo maraba digadu ka dhigaa ويسكه وردا صاروس حلا برمبرقدا وسوقبته وحنتا لسيا لكن محو هيا وعلى وحيد لذا سمرو عكت مرينيا حتى يوم بدو مركز مرك خاركو دول معناها دول بال Soomaaliga lagu oran jiray waan malay libaxa kaliya intuu iska dhaqaaqo waliba daarka intuu iska dhaqaaqo buu iska kibir waxaan uga jeedaa hadduu mid caalamka soo maro kale macnaha aniga kullu wuu dilayaa waxa ka maqan oo aanu garanaynin war malaha way baydin ku wada filan tahay meeshu okay waxa laga yaabaa intii uu isagu u tegay markaa ee doontay ninkan in la dilo kawla kaga siiyo marka way isqalaabaan iyaga laftirkooda inta kawla kaga siiyaabo kooxdii markaa lagala wareega intan oo baranbarqo uu watay uu la wareegaa kii dilay jeedada ka socdo aan ku socdo waxa weeye markaad leedahay ninka kan waxa weeyaan waa hebel oo magaciisa waxa la yiraahdaa reerkaas oo intaad magacyo u bixisay oo magacyada laftirkoodii af Soomaaliga ka saartay si ay iyaga laftirkoodu hub u noqdaan marka magacii baad doonaysaa in aad ku ceshiimaysatid intii yarayd ee aad isleedahay adigu waad nuqsaanta ku saaran waxaad isleedahay intaad magaca mararka qaarkood xataa ma ogid macnaha inay waxa kan ujeedada dhamaynta tahay waa lagugu yeeri dabeetana colaadii baa ku jirta hadalkii baad isticmaalaysaa intii baad seeftaas la socotaa dadka aynu markaa
waan ka baxayaaye waxaad ka fiirsataa qofkii doonaya inuu ereyga dhuuxow ee dhagalehow maalinta uu carab kugu yidhaahdo cabid inteena faraha badan baynu naqaanaa haddii aanan la kulmin cabid kelmadda la yidhaahdo waynu qaraxnaa gaar ahaan kelmadda addoon la yidhaahdana waxaad u malaynaysaa markaad in qof kale oo Soomaali oo kula dhashay aad leedahay inaanay damqaynin la soco oo way ka culus tahay kelmadda aad ku leedahay markaad ama leedahay addoon ama markaad leedahay midgaan ee aad weliba uga jeedid inaad ku dishid aad leedahay yibir waxaad isticmaalaysaa artillery oo ama hubka kii u madaafiicda ugu waaweynaa baad isticmaalaysaa ilma yar oo waxba geysan oo sabi ah marka aad ereygaa ku tidhaahdid ama ilmahaagu ku yidhaahdo ilaa adigu kaa soo maqlay la soco hurgimada iyo mililka aad urkiisa kaga tagtay cid aliyaalo cid kale wax yeeshay ma jirto walaa gaalaan wax yeelin ereyga kelmadda gaalada la yidhahdo laftikada waa deelqaaf markaynu halkan joogno ee aynu ku hadalaa hadii jeelaale walaa qof aan diintaada haysan baan waxa ka yeelin because iyada xuquuqdooda ay u hadlaan waana guursadaan wayna soo dhaweeyeen wayna ogaadeen inaad ku gardaran tahay iyagu way ogaadeen adna waad la daba socotaa jaalinimada uun ayaad jiidanaysaa ee la soco ana kaa badbaadin maayo maalin maalmaha ka mid waa aqoonyahan Axmed Yuusuf aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida qiimaha badan ee aad nagala soo qayb gashay barnaamijka midnimo qaran ee wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed iyo maalinta aaska qabyaaladda iyo quursiga walaalaha Soomaaliyeed waxa inoogu xigi doona insha Allah bilmillahi kariim reer midnimo qaran iyo bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ayay hiban mar walba ugu arkaan midnimo qaran markastana way nagala qayb qaadataa hidda dhowrta dhaqanka iyo haleeyada ummadda Soomaaliyeed oo wada garanaysaan ayada ayay noogu xigi doontaa ayaduna barnaamijkeeda ugu soo tala gashay qaybta aad baan ku soo dhaweynaynaa hibo dhaliishan qof badan buu ka arkay anigu waxaan ka arkayaa dadkan waa dad Soomaali oo wada dhalanay way naga cilmi badnaayeen hubka istameynayeen qaasooyinka istameynayeen leebabka istameynayeen kan wax ku cunno dheeryahaynoo sameynayeen leebka iyo qaansada waranka iyo gaashaanka marka aqoon-yahanadii aynu inagu markaa lahayn baynu dhaliilnay halkiina maynaan dhaafin marka waxaan oran lahaa ummadda Soomaalida quursiga iyo qabiilku qaadirkeen ka yaabo eelkii waanu qadnay qof walba ka qayb gal waxa kaloo leeyahay dhalintii dhulkaygaay dhibaato aad u badan iyo dhaawac baa jira dhexdeena dhibiibiyay oo in la dhayo u baahan dhab haddaanu fiirsano dadka nolosha dhuuxee raaxada ku dhaata siday ugu dhigmeen horay dhaqanadoodii gaboobay qodobkay dhaliileen bay dhaqso uga tireen ay mududhaama qaateen innaguna dhigood baanahoo aadan bayna wada dhalay weliba waxaynu dheerrahay diinteennu ma soo dhaweyso dhuudhuud iyo beentee runta aan ku dhaqanno haddaan hoos u dhaadhaco laba dhab isku jecel oo dhalashada Soomaaliya oo diintu dhaqan u too dhabanna aan isdheerayn dadka dhaliilu yeedhay yidhaa iskuma dhigantaan waa inaan dhammaanteen dhanka wada maraayo dhalanteedka beenta bulshadeenu dhaafta wabilaahi tawfiiq ما شاء الله waxa inoogu xog doona insha Allah bilmillahi kariim ashwali waxa maadaama aan ka hadlayna maanteeto aasida qabyaalada iyo quursiga walaalaha Soomaaliyeed waxa ina la jooga madaxdii midnimo qaran Maxamed Soomaali oo qise aad iyo aad u xanuun badan aniga iiga sheekeeyay laakiin aan rabo kulligiin inay ila maqashaan insha Allah bilmillahi kariim marka ka dambe waxaan u noqonaynaa abwaan luqmaan insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Soomaali oo aan rabno ummadda Soomaaliyeed inay dhibaatada qabyaaladana inaan ka wada hadalno dhibaatada quursiga keenana inaan ka wada hadalno marka waxaan dhexgelinayaa sheekada tiiraanyada leh ee ku dhacday Maxamed Soomaali waxa weeye walaalayaal adduunkani waa laga tagayaa wax koobanna weeye dad islaam baynu nahay run ahaantii arinta markaan ka sheekeynayo oo yaani aan doonayay aan ka hadla dareenkayga dhan baa isbedela waxaa jirtay in aan dhalinyaradu markay soo qaangaaraan kulay dadku way isbartaan waxaa jirtay gabar in ay ani iyadu waxna dhex mareen oon isjeclaanay dad markaa soo barbaaray oo soo koray aan ahayn
run ahaantii dugsi qur-aankan isla soo dhigan jirnay ilaa heerkii iskuulka isla nimid dad ubaxoo markaasi soo barbaaray ahaa isdoortay isjeclaaday shakhsiyan markaan anugu gabadhaa ka hadlayana weli way ii dhiman tahay gabar soomaaliyeed oo noocaas oo kale ahayd markaan ka hadlayo akhlaaqdeeda waxbarashadeeda wanaageeda dad waxaynu ahayn hiigsanaya mustaqbal iyo farxad isla mar ahaantaana ku nool dal burbursan anoo intaasi ay haysato ayaa waxay dhacday annagoon markaa qabiil aqoon in xaafadii wararkeenii laga maqlay oo gabar yaroo markaasi soo qaangaaraysa la yiri way sixiratay muxuu ka doonay maxaa jira aniguna markaasi wuxuu ahaa jacaylkii ugu horeeyay Soomaalida jacayl ku wada dhacay wada garanaysaa run ahaantii jacaylka aan gabadha u qabo anoo gabadhii heshiis wada nahay oo heshiisna xaafadda markaan iska imaado waxaa dhacday heer ay kaliya inta meel iska fariitay iska ooyo jacayl dartii baan la ooynay qofkii ima xanaaqsana dhibaato nama dhexmarin waan haystaa haddana mar alle markaan cunto soo hordhiyaan cuna is iraahdo ilin baa iga soo daadata way taan dhibaatada hore wali gaari dhibaatada soo socota reerkii baa arintii markii dambe ogaaday adigu gabadhan inay wax naga dhaxeeyaan waxaa la bilaabay qaabkii aniga gabadhan loo kala fogeyn lahaa qofka kaliya markaa ugu kalsoonaan aad kugu dhawaa waxay ahayd hooyana wada garanaysaa hooyadii arrinkii way igu taageertay waxay gaartay in hooyadii arrinkii gacan loogu qaado markii aniga taageertay oo walaalaheeda iyadoo gacan u qaadaan oo anigii la gabagabeeyey oo la yiri soo bax dalxiis baa lagu kaxeynaya ninka waa la sixray oo baadiya la iga tuur waxbarashadeedii oo dhan baa la joojiyay gabadhii niyadda laga dilay way muraar dilaacday qof wax baranaysa ahayd heer waxay gaartay dalkii oo dhan iyadan laga soo qaado oo kulli ehelkeedii waxay qaadaan oo anigii sida waxbarashadeedii dhowr sano miyi lagu soo hayo marka waxa weeye waxaas oo dhan sida walaalkay uu sheegay waxa saldhig u ah waxaas oo dhan maanta anagu halkaan ka hadlayna waa jaahilnimada Soomaalidu dhibaatada haysatay ugu weyn waxa weeye jaahilnimo weey taas waa isna wada qirayna diinta waynu baranaa hadda dadka Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 60 haddaysan ka badnayn ama 80 ama 50 xaafidul quraan bay u badan yihiin quraankan wuxuu ka hadlay ma yaqaan macnaheedu quraanka ma fahansan marka adigu waxa aan maanta ka hadlayna saldhigiisa waa jaahilnimada gabadha waxa kaliya hoon isku weynayna ma aysan ahayn arrimo kale oo waxay ahayd reerka iyada ka soo jeedo oo aniga waxa la iigu sheekeeyay inaan ka sareeyo oo reerka aanan geenin oo aan isguursanin يعني waxa mustaqbalkeenaas loo burburiyay oo waxbarashadana loogu kala gooyay oo gabadhii loo safarka loogu riday oo ariga miyiga liiga tuuray labadeednaba noo saameysay waxa ay ahayd oo kaliya waxaan la yiraahdo qabiilka ee waqti xaadirkan aan saldhig lahayn marka insha Allah ta'ala waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan gabigood kula dardaarmayaa Ilaahay maxkamadiisa la wada hortagaya Ilaahay maxkamadiisa baa la hortagaya Ilaahay baana boqora qof kasto Soomaaliya maanta markii meel yar lagu cunsuriyo ama salaada shaqada loogu diido sida u gubanayo waad aragtaan dad annaga maanta yani meel walba nagala siman inaan niraahno ama aan aamino inaan ka sareyno ayaguna waxaan kula dardaarmay inaysan aaminin in laga sareeyo dadkaan la mid yihiin assalaamu alaykum warahmatullahi waxa inoogu xigi doona insha Allah bilmilaah karim Ahmed ku soo noqonaysa no okay waxa inoogu xigi doona hadii Ilaahay waxa inoogu xigi doona abwaan Luqmaan oo asaguna tixna ugu soo talagalay nagalana qayb qaadanayo aragtidiisa insha Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diinteenu waxay diiday dadku inay kala sareeyaan waxay diiday diinteenu qabyaalada waxay diiday diinteenu cunsurinimada nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ay wuxuu ku yiri al-muslim akhul muslim muslimku muslimka la walaalki la yakdibuhu wala yakhduluhu naam beenu ma sheego ma hoojiyo dhibaato kuma sameeyo cirdigiisa iyo sharaftiisa kuma xad gudbo waxyaabaha diintu ay xaraam ka dhigtay waxa kamid ah qofku markuu muslimnimada soo galo waxa mamnuuca qofka in cirdigiisa iyo sharaftiisa lagu xad gudbo ya oo qofka cirdigiisa wax laga sheego nabigu arinta aad buu u diiday diinteenuna way diiday al muslim akhul muslim muslimku muslimka waa walaalihi rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay xadiis kale المسلم للمسلم كالبنيان مسلم وحو يحيى سدا دسمو يشد بعده بعضا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بركي بركل او adkaynayo nabigu wuu diiday wuxuu yiri color iyo carabi cajab waxa ma dhaanto maxaa la yiraahdaa cajabina carab waxa ma dhaanto illa bi taqwa Allah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhisay bulsho islaama
oo carab leh oo afrikaan leh oo maxaa la yidhahdaa birshiyaan leh oo maaragtay ilaa iyo yurub buu nebigu isu keenay salmaan farisi iyo bilaal xabash iyo ayaa nebigu bulshuu dhisay marka anigu waxaan maxaa la yidhaahdaa qiyaasaya in ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku timi ay tahay qabyaalad iyo quursiga inta aynu ka hadlayno inay gundhig u tahay dhibaatada Soomaali halkaa dhigtay waxaan rabaa waa gabay dheer laakiin qaybo kamid ah in ay idinla wadaago bulshada Soomaaliyeedna aan u soo maaragtay masaayibta Soomaali weyn madaxa loo saaray masaayibta Soomaali weyn madaxa loo saaray miyiyo magaalaba dhibta maara laga waayay macaluushan hadhi weyday iyo maalkan dabar beelay madarkii cirko isxidhay dhulka oon midha ka soo yaacin waa midii quursigu dhalaya madaxsanayseene ka macaasha waataad sharciga muranka keenteene nacam hebel lama sinna ka macaasha waataad sharciga muranka keenteene ma dhibaanina dad badan laakiin waa qayb ka ma dhibaan inaan maagno oon midabta koor saarno muslimiin ilaahay taqaan mahadha loo geysto milgahay lahaayeen markaan maydhnay sharafkooda masiibadu halkaasay ka timi doqoni waa mooge ka macaasha waataad sharciga muranka keenteene mudaciyo maxaadhkiyo dadkii gudinta maareeyey waa inta hiba sheegaysay mudaciyo maxaadhkiyo dadkii gudinta maareeyey ee kabaha maaska ah tolaya milicda noo diiday magligana afeeyo warmahan cadow ka maagayo mindiyaa dadkii noo tumiyo weliba maacunta maal inaynu siinay ahayd amase maamuusno oo ay muhiibaan iyagu magaca Soomaali maanta iyagu ay Soomaaliba hogaamiyaan ilaa waxa weeye injineerintii Soomaalida oo ay muhiibaan iyagu magaca Soomaali badownimada maarowday baa meehanowga leehe ka macaasha waataad sharciga muranka keenteene waxaan cadaray aragnay dhulkan ku aragnay wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed nin ajnabi ah guursanaysa waxa la oranayaa way soo muslimay markaas hooyadeed way soo muslimay wareede ninkaas wuxuu ku dhashay iyo siduu yahay arrimihiisa midna garan mayso muslimkii waligii muslimka ahaa oo aabihii ahaa oo isagu ahaa oo awowgii ahaana waa la diidan yahay masiibadu markii ay timiyeen dunida maashaynay markii aan Maraykan iyo Ruush magangeliyo aadnay madow iyo ajaanib hablaha u meherinaysane muslimnimada ruux soo galayo maalma qura joogay hadda shal maalintii baa la meheri haddana barina waa arooski muslimnimada ruux soo galayo maalma qura joogay madow iyo ajaanib hablaha u meherinaysane muxibadaadu haysaan wanaag madaxa saartaane waxaad ugu madiixdaan sidii igadh maqaareeye wiil fiican nin cadaanaa guursaday waxaad ugu madiixdaan sidii igadh maqaareeye maaha inaan anu qofkaa soo muslimay ma maagayo maaha inaan dacninayo dadka aan igu maagaye masaladan la yaab kale inaan muujiyaan rabay muslimkii hore waxaa lagu diidan yahay oo muslimkan maanta loo haysto waa la diidayaa dad baa waxyaabo kale oo intuu soo muslimay qofkii gabadhii markuu guursaday cusbitaale la geeyo waxyaabo kale lagu sameeyay waa la sheegay ka macaasha waataad sharciga muranka keenteene malaayiinka aadami ku nool dunidan maageeran malaayiinka aadami ku nool dunidan maageeran mid cas iyo madow iyo mid maariiman iyo midabka reer eeshiyaad yalowga moodaysid masaweeye Soomaaliyey maqal adoon diidin dadku waa wada siman yihiin ka macaasha waataad sharciga muranka keenteen mudaniyo marwaan la hadlayaa magaca Soomaali mudaniyo marwaan la hadlayaa magaca Soomaali miyi iyo magaalaba maqaal baan u dirayaaye muslimiinu xaqiro ruux muslina murugo weeyaane munkar weeye shaydaalku uu maalku bixiyaaye mabdii fircoon weeye iyo Muuse Saamiriye
نعمت فرعون يبقى دتك قميسن شري مبادئ هالكاسي كسو جيدا كما شواتات شرعي مورانكا كينتيني ما سيها نصوم عليبا موشي فعل ويني نعم من بدنو أبوانين ما سيها نصوم عليه با موشي فعل ويني ميغاني سعيد صالحي مهد هدرا والي موضوع قرصيغا مدي مدل كشيغيني معفل ليسو صوبحي خلقيغا اوغا معنييني موجدها بي بي سي دانا واد كمقشيني ميسانكا آخر إله ميديكتا هاوسارو marka waan ku soo noqon doonaa ما شاء الله إلهي هاكو بركة أبوان ما شاء الله وادنا غير السيسي ما تقنا وحيابها الصومالي كل رقم الصومال مركز قاب كروح إسلام هاي بالآن لماذا لما يقانا because بالآن لماذا هبي ماشي تجربته أو بالآن لماذا أي كاي إن درينا هذا والله أنا أقول مركان معني سيدا بالآن لماذا كلينا لو كفيرنا يو قف ريليجن ما فيرنا يا مالك وحكوا رأي هما نتيجي إني مركز أقول أي إيجان haddaad eegto oo aad dadkeenina eegto waxay kugu noqonaysaa murugo qofka qof wax dheerna kulli anigu waxaan u aqaanaa waxaan aaminsanahay qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ballan qaaday janno qofkaas uu baa qof wax dheer waxaan ku soo dhaweynayaa abwaankeeni weynaa ummadda Soomaaliyeed ee aad u yaqaanaan abwaan Cusmaan Ducaale abwaan ku soo dhawow barnaamijka midnimo qaran waan ku faraxsanahay inaad maanta nagala qayb qaadanayso waxa weeye Soomaalidu markaad u fiirsato runtii dhaqankeenu iyo qaabkeenu socno waxaan rabnaa in waxna isbedelaan dariiquna waynu haynaa in ku jabno ku halaaganay cid walba geedkay beertay midhaheeda gurata qabyaalada waxaynu aaminay si aynaan diinta islaamka u aaminin si aynaan alla ka cabsi ugu aaminin midhaheedu bayna guranay iyadoo bay Ilaahay nagu fidmay iyadoo bay Ilaahay nagu burburiyay waxa aynu jeclaynay inagu dariiqaynu raadinay midhaheedu baynu guranay wax ka siyaada ma dhicin diinta waxaynu ka dhiganay cibaadada koowaad oo qofka hadii la diinta iyo iimaan loo qaatay maxaan ku leeyahay diinta ku xoog badan labada hadii miisaan la saaro xitaa iska hadii la saaro qofka inta iimaankiisu leeyahay iyo inta qabiyada ku jirta inta leegta hadii la miisaamo waxaan u meenin aan raajac noqon lahaa ani mansooyinkayga inta ugu badan ee aan hadii jeer ka hadla waxa weeye waa qabyaaladu Soomaali dhibaatada u geystay ama ku soo socota haddaan rabbiga firaj furin sababtoo ah ilaa hadday ku soo socotaa oo wali ahad rabtaa inay isbedel timaado dariiqina kama baydin maansooyinkayga haddii aan tusaale ka soo qaato qabyaalada loo jeedo diin ku raagidiyada la baxsha beedad kamida waxa ku jiray haddii ay dux macaan iyo hayb daawo lahayd inuu ruux tarajeedan ku gaar lahaa dulligayna baday iyo dalkeena dib u eega abwaan baa ku dardaarmay qabiil waa dugsilaawe nabaraan la daweyn meel hoos ka daayay cudur weey dilaa duxfiga aan kartidiisa ku danaysan karayn iyo daalin baa ku adeegto boogta diirka qaad weligood badamqa iimaanku ku daciifa diinta oo laga bayray danay dhalisa xinbay daadihisa waxday dumisa ninka xoog leh uma baahnayeen aqoonta uma baahno qabiil laakiin ninka duxfiga waxa ka baahid ayaa keenaysa diinta oo laga bayray iimaanku daciifa danay dhalisa xinbay daadihisa موريان ديرتها ودد الدنيا بحقده iyo jidhan waxba deeqin oo xamilooyinka dooxda iyo daydigi korisa waxa kamid aha mansaaru bixi tala sax waagi la isugu tagay carta il 4.5 balance 4.5 waa tiyo ka sii daran wala si casriiba fiir hada mansaaru bixi cudurka dawo laga ma dayo qofku cudurkii dilay dawo hada inuu ka raadiyo ay waxa ku sii tala sax waxa kamid aha qaybaheedii اسم iyo garaad iyo suldaan boqorka Soomaali sarkaal siyaasi iyo sarkaal ciidan oo kala san taagaya hooyo saxarla walaashay Saadiyo hooyaday saxarla tala saxaf riman saas aan shirka hooseyne subka iyo qofkii soconaya saxafiga uu sheega cudurkii dhamaana salfadayna wada saaqay cudurkii saqiir iyo kabiir sabeen noo dhaafin cudurka dayb saana ciisa xarbixin waaye qabiilkiina saanyaday inaan qaran ku soo saaro waa sacabka oo tima dhala oo sayn ku aragnaaye nina yuusadka kaga riyoon wuxuu sugin يعني قبيل وكيل كبر حاجه دوغ هادريس قبيل دوغ هادريس قرن هيدا ku burburay weeyo waxa kamid aha Soomaalidu yeen door taqaana Soomaalida haligeed waqtuma Soomaalida xakaradkeedu waa kuma وكبر كدعدي وكان إيمان كلهين وكدت كلاية وكدت كدعة وكقبيلسته وكوحدة يعني قف إسكان مسكين ولا هي كان حلو لو مدي بتبه وجميع وركاسو متشرع سنبال ليه يا
qasum waxa ku mid ahaa qasumada halkay nooga timi ee qaranka laga soo galan qaardin tilin waxa qabablaha dagaal wade midkan qaati laga joogsan qorax soo baxda kan naflaha boqol qor soo goynin xaraan midkan quudan ee aan qandiga buuxsan qarashkii colaada midkan bixin qaadanka qabiilnimo midkan sheegan aan qola ku faanaynin qiimo kama leh qoonkan iyo qaranka Soomaaliya waa markaan sheegay Soomaaliya yani waa kuma waa ninkan karmaadka oo haysana sharafta loo haysana hadii aan qabiilada inta kaga haro ama aan soo wada dhac quursiga kale dhibaatada iyo hortayada soo wadaata waxaan leeyahay arinta quursiga ama dadka la leeyahay waa la takooraya ama arrin ka xanuun badan kana gudaweyn tan waana midhii ka dhashay faa'iidada laga dhashay waxaan maanta joogno waana dalkeennii salfatay waa qarankeennii salfatay waa midnimadeennii salfatay waa cidka inta ay taasi jirtanayaan la sugin inay wadankeena wax ka hagaagaan sababtoo ilaahay wuxuu yiri ibn aadmiga oo dhan waxaan ka abuuray aadanna waxaan ka abuuray dhoobada ma jiro carabi iyo cajabi kaga sareeyo mid kaga sareeyo mid wax kula duumi jiro adigu marka tiraahdo anigu ana kan ka sareeyo kan dheeraysan soo wixii iblis lagu halaagay ma iblis markii uu yiri maxaad ugu sujuuday aadan uu dhisay naar baad ka abuurtay isna dhoobad ka abuurtay balka isagu qiil buu haystay laba shay oo kala duwan baa lagu kala abuuray kan cadaanka markuu ka madow ana wax kaga duwan marka difference baa jira midab wax buu sheegtay bal adigu kan kula dhashay ee ku maxaad kaga duwan tahay maxaa difference ka sheeganaysaa maxay tahay waxaan hadda ku wareejinayaa insha Allah anagoo soo gunaanidi doona barnaamijka أكتردني أما عذرك أحمد كاهن أو وضع قرنيسان إن شاء الله. وحن حصوصتي وحن حصوصتي برنامج أو جامعة أو شيء بعيان وحلقة شيء سومالي إني قبيلة تكود شيء مركانين عدانا سو يستاجوا وحيري أو أنتي نهالك فردان نقول ما كلا قرنا إنه مركز ستيلي سين شبهدين إنه يونيفورم بيلي إنه متبع جرين أو متبع عجاره متبع عسانة سيدي ريركن أدعول كتينة تكوجرتها يعني هو يجرم ويدك ويابان مركا واسدي أو كله قف كان رير هبل كان عنصريين سئين كوجرنا ما بجرين ووحن لجرين دكتور ليسوس صاري مركا وحن لنا هي وإن إنه كشهيدنا وإن إنه آسنا إن شاء الله وعدة كليات فرس إربط سومالي ما سمايسته عدة كليات وحنا سمايسة هل كانوا دلع سين لهين أدونكم فرسموا كفارة الدنيا ده واحد كوكلا دايريسا سيدي فرسمة ده وكلا وجهر مرين عدة كليات وحجرنايسا أيين كلا دجالنا وحي نص ميان مركا وحن حسوس قلنا وحن ليدي داعون قلنا أو يوغاندي سبري وحن ليدي دوا الله قيبنا وحنا إلا العقنا للسيادة وذا عني ماينه وهذا يجب أجرن موقتها عدة كليات وحي نص ميان يسوي وحي عنصري هذا إنه كو عيني كباهي قشنا هي إربطنا وحكوس ميسان هي يعني مركا وين دجالنا ويان مركا وحصلنا إنه سكوت الرعنا والشرف وأمانة وريركا ولا لهن إليهن أنا وحن قبا وحكست بوقت بيليهن ما أنت واحد لقاري وقتك وحن دمان لهاين وهي دمانتي ويارك بين النغني روح دينتي بحقها تيرر كذا عسكذا تسبيح سدنا توحيدك تبت هذا الله تلمانتي توبدي خير كيو تاكل هذا مسجد هذا كنتو ساتنا ذو حد مركي تمادي إلك اللوغة تقو صوته سروحي لبا ملك بادول تاغنو ويديني توحيدكيو استلاني ماذا تامكا روحي توصي شاغنا ملايك تاكوليسا هريرها كتاغنو إفكي وحو تبيبو آخر وغو تغيا تقوو إيمان تاما جنة اللوغو تغيا ما شاء الله تبابر بادوية الله ينو كيني أدون تايبو تولمون النبي جينا تلمانتي سيشو تسالي سيقاتون توبيها كله حنة تبت غير كراعة جنة الله تسميها تاجر هي فقير ما رنتي وذا تاجين بعد كتهان قرحة لقدرنا حرب الله تعالى تدكي إفك كنت عديو حسابتي وتاجرنا تقي فردوس الله تسا تعبية توكل على جنة الله تجيبو حديث كنت المامة إبليس تلحمه كتكورن حريستا كوا تابعه طبل مرة الله يوانا قترن Soomaali baan nahay haddana ku hadla Soomaali baan nahay haddana ku hadla Soomaali sidii qaraabatihiin gabiba Soomaali
sunni iyo islaam baynu nahay diini kala soocin si loo dayaba waxa aynu nahay saciyo weyshii seegseegii soo kala dhex galay saaka wuu tegi soo dhowow sareediya ayaan saatir kugu dheehiyey waxaa kaloo ku darayaa salaankii qabiilkii la jabay gebiba soomaali surucii ku kacay iyo fidnadii laga sancayn waayey saxansaxadii nabadii luntay baan saaka filayaaye soo dhowow sareediya ayaan saatir kugu dheehiyey walaalayaal annagu shakhsi ama siyaasi qaasa ama reer intaba ma matelna waxaan matelnaa u taaganahay qaran Soomaaliyeed waxbaana isku dayeena insha Allah taala waxaan caawin ugu baahannahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo daafaha caalamka meel kasta kala joogaan inay barnaamijkan nagala qayb qaataan la dagaalamaan qabyaalada oo run ahaantii muddo aad u fara badan ummadda Soomaaliyeed soo lugoysay waxaan ka codsanayaa cid walba oo Soomaaliyeed oo islaamnimo ku jirto damiir ku jirto inay barnaamijka la dagaalanka qabyaalada insha Allah taala nagala qayb qaataan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ninkii lagu yiri war hashu ka dhimatay war hasha maxaa ku dhacay wuxuu hasha wadna waa dilay waxna waa u heeshaan waxaan uga socdaa qabyaaladu meesha ina dhigtay ama midhihii ka soo goyn baynu guranaynaa laba codsi baan soo jeedinay labada codsi baan ku soo gabagabeynay gruubka جميلو يا محمد سومالي إنجليز شوغان فنتي وحن عدسانيا وإليس بحيو بداميا إليس كاس إن لا تاجره ضد بدن بس كده إليس كاس إن لا بقتيه لكن هدي إن الله أنت في سومالي أنت إن بدنه في قريبا نجت إن بدنه في عنو واجته نقول بكالة تاجره أنت تاجر الله سيو واي قبيادو خلوا يضع مش عيوننا لا إنك عينا دكتي haddii abaal wax laga sameeyo oo wax abaal laga helan abaal binu keen lahayn meesha ay tan waarkeen iyadoo ku soo socona daawadayaal waa barnaamijkii meesha nagala socotaan waa barnaamijkii midnimo qaran Somali Cable ما شاء الله ما أنت برنامج كي قرف ضبطنا وحنكسو جبينينا إن شاء الله بالله الكريم إن قبيلة يقورس باللوايو أنا جو آسف دونا ما أنت قبيلة دا يقورس قلب ضبا ولينا أنا هاي لما يستر أن سيد قالم الدورنا إلا أنت ونجنو لي هاي قف صومالي oo Allah subhanahu wa ta'ala aaminsan laakiin aan aaminsaneyn dadqana wax kale aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhamaantiin abwaanada sharafta leh maxay tahay dhamaantiin aad baan ugu mahadcelinayaa maanta inaad nagala soo qaadateen qayb gasheen barnaamijkii midnimo qaran oo aan filayno inuu gaaro meel sare oo aad ku farxi doontaan idinkuna waxaan rabnaa maanta in aaska qabyaalada nagala qayb qaadataan halka wixii ka dambeeyay insha Allah inaan jidka saxda ah ummadda Soomaaliyeed aan ugu bishaareyno oo ay raacaan